ciidamada gurmadka fidinaya ayaa weli ku howlan la dagaalanka dabka ka kacay bartamaha suuqa weyn ee Waaheen, kaasi oo runtii aad u weeraryaha. Sababaha dabka fidiyeyna waxa ay ahaayeen suuqa oo aan lahayn marin ay maraan gaadiidka gurmadka ama gaadiidka dab-demiska, balse ciidamada oo ay mar dambe soo gaareen cagaf-cagafyada ayaa baneeyay wadooyinka, kuwaasi oo itaalkooda gudaha dabkaasi u galay, xakameeyeyna inuu wadada dhinaca koonfureed dhinaca waqooyi uga soo tallaabo wadada halbowlaha ee suuqa kala badha. Dhinaca Waaheen ayaa dabku ku badan yahay. Ciidamadu wax tallaabooyinka ugu waaweyn ee ay qaadeen ilaa iyo haatan ayaa ah inay dabka aanu u soo tallaabin dhinaca wadada kale ee waqooyiga xigta. Dabku wuxuu ku egyahay suuqa weyn ee bacadlayaasha iyo dhowr fooq oo u agdhow, kuwaasi oo ay gubanaya sida marka fooqa aad arkaysaan oo gudaha ka gubanaya. Runtii ciidamada waxaa ku yar qalabka ay kula dagaalamayaan dabka ayaa aad ugu yar, oo waxaa inta badan soo gaaraya booyado ay leeyihiin dad shacab kuwaasi oo iyaga laftooda gurmadka ku jira. Dhibaatada kale ciidamada haysata ayaa ah in booyadaha ay sitaan aanay dabka gaarsiinaynin meelaha aadka u dhaadheer ama aadka u fog. Ciidamada naftoodurayaasha dab-demiska ayaa iyagu isku dayay in ay gudaha u galaan ama ay u dhowaadaan dabka, maadaama oo qalabka ay isticmaalayaan aanu ahayn qalab meel fog biyaha ka tuuri kara ama biyo awood badan tuuri kara. Laakiin intii karaankooda way la tacaalayaan. Allaha u gargaaro dhammaan ummadda ay halkaasi masiibadu ka heshay. Waan u ducaynaynaa Rabbi, waxaan uga baryaynaa bisha barakaysan in Ilaahay bedel khayr qaba uu siiyo. Weli waxaa socda gurmadka, shacabka laftooda ayaa iyagu ka qayb qaadanaya oo la guraya maanta dadkii wixii meeladaasi ay ka badbaadeen. Baabuur bay soo qaateen ganacsadayaasha qaarkood oo ay gurayaan suuqyada ugu dhow. Dahablayaasha kale, sariflayaasha kale dhammaan waxay ka qaadanayaan wixii alaaba ah. Sidoo kale goobta waxaa soo gaaraya oo si istiraatiiji u soo gaaraya kooxaha gurmadka caafimaadka oo markaasi wata oo ku gaashaaman baabuurta gargaarka degdega ambalaasta, kuwaasi oo guraya dadka gudaha ku jira ee ku dhaawacmay isbuurashada ama alaabaha ama dabka laftiisa uu soo gaaray. Tiraba 3 jeer ayaa dad dhaawaca ay qaadeen, inkastoo aanan hubin tirada dadka iyo dhaawacyadu si kala duwan yihiin, laakiin tiraba 3 jeer ayaa yimaadeen ciidamada waxaan jeedaa kooxaha gurmadka caafimaadka oo ay dad ka daadgurayeen gudaha suuqa.